ku talagalkaaguna waa ku talagal been inaad ku qaadato xoolaha wey hadii maqsadkiisa la eego waa ku talagal inuu xaaraan iyo been xoolaha ku qaato dawladda ku yiraahdo xaaskan waan qabaa isagoon qabin meelo badanna maro meelo badanna waraaqa u buuxiyo beentaana iyada uu lacag kaga qaato waa midda labaad ee dadku geynta carragaala la geynayo wax badan baa faraha looga gubtay wax badanna waa la eeday ceel ninkanaa la waraystaa dadka tegay waraysta dadku farahay kaga gubteen meeshaasi meel muslin loo daadgureeya maaha gaar ahaan haddu ay kaba sii darayso la kala daadgureysanayo la kala guurayo wabillahi towfiiq jazaaka allah khayr sheekh gabar magaceeda aan sheegin waxay tiri waa idin salaamayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu salaan kadib sheekh waxaan joogaa maraykanka waxaa laigu leeyahay 2 bilood oo soon ah labadaas biloodba waxaan ahaa oo ay igaga tagtay umul haddaan rabay inaan qalleeyo laakiin ninkayga maalin walba wuu ii baahan yahay duhurkii buu rabaa haddaan dhaho waa soomanayna wuxuu aniga soon wax igama gelin aniga maxaa ii bannaan oo aad igula talin lahayd sidoo kale waxaan rabaa inaad wadaadka laftiisana la soo talisid uu dhagaysan doonaa ama barnaamijka waa daawan doonaa bismillah alxamdulilah cabdirasaaqow soonka gabadhu ay soomayso hadduu bil ramadaan yahay idan uma baahna isna uma banaana inuu soonkeeda jebiyo hadduu soonku soon sunnaa yahayna idanka ninkeeda iyo ogolaanshihiisay u baahan tahay haddii la jebiyana dhib ma laha intii laga maarmi waayo waxaa soo haray soonka qadaha ah soonka waajibka ah een ramadaanka ahayn ama waa soon kafaara ah ama waa soon qada ah ama waa soon nadara wuu noqon karaa intaba soonkaasi laba marxaluu maraa inuu yahay wakti kooban qofku ay haysato oo bisha ramadaan soonkii kaa tegay waktigiisu waa ilaa soonka kale wakti badan baa la haystaa waktigu gadaal wuu ka soo yaraanayaa ama duruuf waxaa iman karta waktigaa sii yaraanaya gabadhu hadday uur leedahay oo kaleeto yar inuu uurku sii weynaado oo sii cuslaato ay kari weydo sawir ah u soo muuqda haddii waktiga jaaniskay haysa uu yar yahay idan uma baahna inay soonto ninkan uma banaana soonkeeda inuu jebiyo waayo waajib wey waxay ku jirto camal waajiba haddii la galana wixii daruura waa gaarkeed iyaduna inay iska afurta looma ogola isagana inuu afuriya looma ogola idanna uma baahna waktigu hadduu ciririyamo hadduu waktigu waasac yahay qoysku waxay ku fiican tahay in idan iyo ama waktiyo uu safar ku maqan yahay iyo wax lamida inay ku beegtay ku fiican tahay ama idan ay weydiisato hadday dhacdo idan la-aan inay soontay soonkuna farad yahay ka jabintu ma banaana hadduu isagu intuu arrintaa dalbada ay diidana dembi ma aha waxyaabaha faraa'idka ah waa xaqullaahi oo waajib oo ka horeeya xaqa aadamaha xaqunaas ka horeeya ninkuna arrintaa inuu tixgeliyo waajib bay ku tahay gabadhuna reerku xoog iyo fadh iyo faralaab kuma dhaqmee ninkeeda tartiib intay u waaniso ilaahayna xasuuso ka baqtiraahdo in iyadana waktiyo ay isleedahay ama safar buu jiraa iyana waxay samaysan karta samaysato isku dhacdhaca qoyska in laga ilaaliyo gaar ahaan carro gaara hadduu joogo isku dhacdhaca badan in laga ilaaliyana way fiican tahay billahi towfiiq jazaaka allah khayr xilliyada gaasku ku kacsaya ku aadis asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuhu wuxuu yidhi waa cabdulqaadir cumar waxaan ahay arday barta buu yidhi caafimaadka 2 su-aalood baan rabaa inaan sheekha weydiiyo su-aasha koowaad waxaa weeyaan hooyo ma laga bixin karaa ilmo galeenka ama riximka oo ma la gelin karaa gabadheeda si kas ah waayo hooyaduna way weynaatay gabadhuna waxaa laga rabaa inay ilmo dhasho ama waa laga saaray ama waa ka xanuunsatay ama kumaba dhalanba waxay rabtaa ha noqotee ma loo gelin karaa su-aashiisa labaad waxa weeyaan cabdulqaadir cumar waxaa jira buu yidhi marmar baan eyga iyo doofaarka waxaan ku samaynaa practical oo aan camaliyadahan markii waxa qalitaankii la samaynayo waxaana la yidhi hal la dhaqo 7 jeer ayadaasna maxaan ka samaynaynaa
بسم الله سؤال شهر عبد الرزاق قو mid daanu garan maayo minka haddii qof laga saaray ilmo galeenka oo qof kale lagu abuuro ama lagu tallaalo ama lagu beero suuragal ma tahay inuu ilmo galeen noqdo oo ilmo qaado oo arrintaasi suuragal ma tahay dee horta dhanka dhakhaatiirta iyo ikhtisaasaadkeeda laha la weydiinaya laakiin masalada sharci ahaan ma bannaan tahay aan si ka weyn u qaadno markii ilmo la yidhaahdo iyo ilmo dhalanaya xubnaha ilmaha la xiriira way badan yihiin xubnaha ilmaha la xiriiraay dhalashadiisu qayb waa tanna la weydiinayo waa minkii ilmo galeenka ahaa iyo weelkii uu geli lahaa qaybna waa xubnihii taranka ee xidhiidhaya laftooda xubnaha taranka laftooda wey ee rag iyo dumarka qaybna waa waxa xayawaanka iyo ukunta ama waxaan ilmuhu ka beermaya dhaliya weeye oo warshadda iyo mishiinkan wax dhalinaya ee waxaan ay xubnuhu isu gudbinayaan xaruntan minka ana gelaya kuwa gudbinaya wey mar haddii ay meeshaa gashay intan aynu iswada raacina backage ahaan ama kurjad ahaan aan isu raacino xubnaha ma loo kala qaadi karaa dad qof xubin laga soo qaaday qofka nololna waa lagaga soo qaadi karaa isagoo dhintayna waa laga soo qaadi karaa waxba hadda ka hadli mayno qofka laga soo qaaday laakiin xubin ilmo la xiriirta oo qof laga soo qaaday qof kale ma lagu beeri karaa waxaynu u qaybinaynaa laba qaybood qayb ilmaha saameyn ku leh ilmuhu markuu dhalanayo biyahan ragga iyo dumarka buu ka dhashaa biyuhuna waxay xambaaraan isir bay xambaaraan gabadhuna isirkeeday biyuhu xambaarsan yihiin ukunteedu xambaarsan tahay ninkana isirkiisay biyihiisu xambaarsan yihiin nabiga noo alay sl intii la weydiiyey laba su-aalood baa la weydiiyey raalli hadduu dheeraado waxaa la weydiiyey sideeba ilmuhu dhadig ku noqdaa ama labood ku noqdaa waa la weydiiyey sidee buu ree adeerkay u ekaadaa ama ree abtigii u ekaadaana waa la weydiiyey su-aalaha marka la weydiinaya weliba waxaa la yidhi niman yuhuudi ahaayeen dhowr su-aalood baan ku weydiinaynaa oo uusan ogeyn qof aan nabi ahayn baa la yidhi iyagu waxyigii kutubtii hore ay wax ka hayeen saasaa nabiga madiinana lagu weydiiyey su-aashaas jawaab buu bixiyey marka jawaabta nuxurkeedu wuxuu ahaa biyahan isku darmanaya qaybi midab iyo muuqaal iyo xubnaha bay ku saabsan tahay qaybina dhadig iyo labood bay ku saabsan tahay markay isu yimaadaan way kala xoog bataan midkii xoog bataa xerada yeelanaya inuu mid wada xoog batana way dhici kartaa in aagaga lagu kala xoog batana way dhici kartaa markii dhadig iyo labood la yidhaahdo nabigu wuxuu yidhi kii xoog bata ama awood bata ka raggu hadday awood bataanna rag buu noqdaa ka haweentu hadday xoog badataanna haween buu noqdaa buu yidhi marka waxaa laga hadlayaa qaybta dhadig iyo laboodka marna wuxuu yidhi ka raggu hadday xoog bataanna adeeradii buu ekaadaa ka dumarku hadday xoog bataanna abtiyaashii buu ekaadaa ilmuhu nuxurkaan hadda uga dan leeyahay masalada inaan uga si hadla ma ahane biyahan isku darmanaya ee ilaahay wax ka abuurayo isir bay wataan dhadig iyo labood leh muuqaal iyo midab leh waxaa laga yaabaa qayb timahay ku shaqa leedahay qayb jirkay ku shaqa leedahay qayb wejigay ku shaqa leedahay qayb dhagaha weye qayb lugaha weye in lagu kala adkaado qoloba meel u adkaato dhinacan reer ogagtaa dhici karta ilmihii inuu dhadig iyo laboodkii xagga hooyada maro xaggii muuqaalkiina aabbaha marana way dhici kartaa intan way dhacdaa waanan aragnay de qadiyadaas ba waxaan rabaa inaan uga jeedaa waxaan la rarayo
ragga booskaa xiniinyaha ku jira oo wixii dhaliya. haweenkuna qayb saasoo kaleeta ay leeyihiin, qaybta isirka rarta oo haddii xataa meel kale la geeyo isirkii horey asalka ahayd dhalinaysay tilmaamihiisii wadanaysaay in la rara ma banaana. waayo nasabkii iyo isirkii isku khaldankii laga cararayay baa imanaya. masaladaasaa haddii la yeelana masaa'ilka waxaa imanaysa ilmahan yaa dhalay, ma ninkan reerkan qabaa dhalay mise ninka xiniinyahan lahaabaa dhalay baa imanaysa. taasi waa qayb, taasi ma banaana qaybtaasi. waxa la yidhaahdo isirka xambaaraya iyo tilmaamaha ilmaha iyo saameynta ku yeelanaya. qayb aan ku yeelanaynin baa jirta marka. qaybtaan ku yeelanayninna waa laba qaybood. qayb way banaanta, qaybna muran badan baa ka jira inay banaanta, laakiin xataa ma banaana haddaan iraahno haddii la sameeyo waxba ilmaha u dhimi mayso. qayb way banaan tahay aan saameyn ku lahayn ilmahan, waxaa kow ka ah minka iyo ilmagaleenka. ilmagaleenku waa weel ilmaha kaydiya, isagu ilmahan iyo ekaanshihiisa iyo saameyn kuma laha. marka waxaynu u kala qaybinaynaa qaybtan aan saameynta lahayn cawraadka muqalladada ah, cawrada ah iyo xubnaha taranka laftooda ah, iyo minka way banaan tahay in la naqliyo. labadii cidee loo kala gurinayaba hadda ha noqotee haddiiba dee uu anfacayo dhib ka badanna uusan u geysanaynin, waayo cawraadka adkaana ma aha, saameynna ilmihii kuma laha. minku intaan ka garanayo ama intaan qoraalada ka akhriyey waa weel wax kaydiya wey, lehana meel ay u maraan ilmuhu wixii nafaqaad ee u qaadan laha. hadduuba jirka la qabsado dhib ma laha. cawraadka muqalladada lama ogola in ninkan xubintiisii taranka inta la gooyo nin kale loogu xiro, ama haweenta xubinteedii taranka inta lasoo jaro nin kale loogu xiro, haween kale loogu xiro ma ogola. hadday dhacdo fuqahadeena way ka hadlayaan. waxaan mar hore akhriyey xilli sagaashameeyadii, dhowr iyo sagaashankii waxaan akhriyey ilaa haddana maktabada taalaan u malayn alitisaalu ljinsi bilwasaa'il alxadiid, risaalo la yihahdo baan akhriyey. waxaa laga qoray xiriirka goosha ragga iyo dhex maraya, xubnaha lagu xiriirayana inaan kuwoodii asalka ahayn, ama caag iyo artificial iyaa ku dhex jira, ama koronto iyo waxbaa ku dhex jira, iyo cinjir iyo wax lamida ku dhex jira, ama xubno qof kale laga soo gooyeyba ama ninkii ku tallaalan ama haweentii ku tallaalan. iyo fuqahada mucaasiriinta ee xilligan oo ka doodaya inay suuro geli karto inaanay suuro geli karin, dhakhaatiir baa iska leh. hadday suuro geli karto dhakhaatiir badan baa way suuro gashay, xubin la gooyo qof lagu tallaalay way dhici kartaa. hadday suuro gasho sharcigu muxuu ka qabaa baa doodeeda timid. laba qowl baa jiro, asalka hore ma banaanana waa mas'alo, marka dambe xiriirkii saameynaya ilmaha maxay ku yeelanaysaa masalo kale. marka taa oga sii hadli maayo, laakiin doodii qaabka culimmadu u doodayeen labada dhinac baan min hal dadka daawadayaasheenna baan ka taabsiinaya. qolada diidda waxay leeyihiin ninkan xaaskan uu u tegayo xubintana tiisii maaha, waa lagu tallaalay. xaasku waa xaaskiisi, xubinta u tagtayna tiisii maaha. ma banaan tahay marka xaaskiisii xubin ajnabiga in loogu tago? jawaabta waxaad dhihi maya. halkaa waxaa ka garatay dheheen de waa xaaraan labadan xubnood. tan ninka laga soo gooyey kale caqdi isu xalaaleeyey ma jiray dheheen. adiga xubintaada tarankuu nikaaxu isu xalaaleeyey, tan ninka kale yaa xaaskaaga u xalaaleeyey, ama midnaa kale laga soo gooyey adiga yaa kuu xalaaleeyey. halkaasay ka eegayaan. walidaalika carabi waxay ku dhahaan jaamaca zawjatahu bidakari hayri. qolada kalena waxay yidhaahdaan xubintani hadba cidday ku taallaa iska leh. haddii ilig meel laga soo qaaday laguu geliyo, iligga maanta adaa iska leh, adaa wax ku roga. xubintani waa iska cadee
cidda isticmaalaysa ee ka shaqaysiinaysa dabcan ee dhiiggiisiina uu dhex marayo ciddaasaa iska lehe wuu lahaan jiray saamayn ma lehe hadda ninkan haleh waay iyo hadda gabadhana iska leh halkaa way asaaska dooda xalaal wey iyo xaraam wey iyo murankaasa jira bilahi tawfiiq jazaak allah khayr sheekh su-aashiisa labaad waxay ahayd ey iyo doofaar baan waxaan ku samaynaa practical marka see loo dhaqayaa ma biyaa naga anfacaya mise waa in sidii ciidii loo maro alxamdulilah alxamdulilah hadalkaasi waxaan is leeyahay saddex mas'alo wey hal mas'alo maaha halna maaha labana maaha saddexna maaha masalada koobaad waa najaasada doofaarka soo doofaar maada dheh tamaam eygu iyo doofaarka najaasadooda waay kow marna inta jeera la dhaqayo waay marna ciidu maqasaba wey haddii la waayse maxaa la sameynaya kuba dar eyga iyo doofaarka najaasadoodu culummadu saasay u badan yihiin muslimiintu imaamu maalik iyo rag lamida ayaa waxay qabaan tacabud baa loo dhaqayaaye najaaso looma dhaqayo wasaxiixu inay najaaso yihiin wey wasaxiixu inay najaaso yihiin wey ama ayga waxaa laga qadanaya xadiidka nabigu yihi tahuuru inaa axadikum idaa walaqa fiihi lkalb waxaa lagu daahirinaya ay hadduu afka geliyo haddii waxbaa la daahirin la yihi ereygaa waxaa laga faa'iidaysanayaa inay najaaso taalo doofaarkana fa inahu rijsun rijsiga najaasadana waa loo isticmaalaa xaraamtana waa loo isticmaalaa waa ereyada ay luqada usuulka iyo culummadu yidhahdaan mushtarag wey uu ka dhexeeya mushtaragu macaanida uu leeyahay iska hor imanaynina asaxu lqowleyn in lagu wada xambaari kara weye gaar ahaan imaamuna shaafici iyo rag kale siday qabaan iyo qeyb maalikiyada kamida qaadi abubakr albaqilani rag lamida ay qabaan labadan rijsi waa xaaraan iyo waa najaasana isma diidayaan taas halkaa waxaad ka garatay hadalka imaamu nawowi uu leeyahy raximah llahu tacaala fi lmajmuuc markuu masalada najaasada doofaarka ka hadlayo shiraazi fi lmuhadab uu yiraahdo ama in badan ba yidhah imaamu shaafici baana asal oo fi lum ku yiri isaga ayga ka sii xun najaasadiisa yiri intuu daciifiyey ciladaas yamnawi wuxuu tilmaamayaa walaysa lanaa daliilun wax daliil oo quman oo la cuskado doofaarku inuu nijaas yahay ma hayna buu leeyahay masalada koobaad halkan kaga baxo masalada labaad mise jeer baa la dhaqayaa wey ayga nas baa ku soo arooray 7 maraatin 7 jeer doofaarka laakiin wax nas ah kuma soo aroorin imaamu shaafici fi lummi iyo keyrkiiba waxay uga qiyaasteen doofaarka aygay uga qiyaasteen akharu ahli lcilmi culimmada muslimiinta badankood nijaasaadka kaluu lamid yahay doofaarku iyo hal mar baa dhaqitaan ku filan ciidna uma baahna imaamu nawawi raxima allahu tacaala markuu axaadiidan ka hadlayo fi lmajmuuc iyo fi sharxi muslim labadaba wuxuu qirayaa oo uu leeyahy wahuwa almukhtaaru isagaa raajixa fi lum wahuwa qawiyun fi daliili daliil ahaan isagaa xoog badan fi sharxi muslim uu ku leeyahay doofaarka 7 jeer ha la dhaqo wax daliila inaan loo haynin doofaar 7 jeer ha la dhaqo laa kitaab walaa sunna walaa qiyaas saxiixa midna ma laha walidaalika imaamu nawowi markuu minhaajka joogana madhab buu soo guurinayaayo waa naqli 7 jeer buu ku sheegayaa markuu isagu masalada rajaxaya ee daliil keenaya fi sharxi saxiixi muslim iyo majmuuc sharxi muhadab wuxuu leeyahay sida raajixa culimmada muslimiintuna u badan yihiin hal mar baa la dhaqayaa toddobana uma baahna ciidna uma baahna laakiin aygu waa 7 waana ciid daliil baa sheegay qiyaaska doofaarka ayguna saxiix qiyaas saxiixa maaha wax gaar ay wadaagaan oo cilad oo looga qiyaastayna ma jirto aimadeena shaaficiyada muxaqiqiintoodii baa qiraya arrintaas masalada saddex haddaan u gudbo ciidda haddii la waayo ciidda waayitaankeeda intaanan gaarin aan laba ka dhigay iyada lafteeda ciidda maba laga maarmi karaa iyadoo la hayo asalku waa ciiddii waa masale khilaafiya bayna alculamaai xataa bayna fuqahadeenna iyo aimadeena shaaficiyadu masale ay isku hayaan wey iyadoo ciidi taalla saabuun iyo bahalahan still wire iyo bahalahan alkolada iyo gaas iyo waxyaaba booskeedii ma geli karaan
sida asaxa ah haddii la heli karo ciiddaa waajiba. nasku taasuu sheegay xilligii nabiga ciidda laga hadlayeyna saabuuniya way tilay oo baalka ushnaanka ama ishnaanka la yiraahdo geedaha inaga sida gasaangastiya la dhihi jiray macaleentii gobka saabuunta oo kaleetii way tilay. nabigu ma dhihina ciiddu yiri walow ciiddu sida loo heli jiray kuwan sida loo heli jiraan isku mid ahayno halkaa farqi u dhexeeyo haddii la waayo. laakiin still waa masala khilaafiya culamo badan qabaan in saabuuniya ay kaaga filan tahay iyadoo la hayo ciiddii. haddii ciiddii la waayo laa yukalifu allahu nafsan ilaa wuscaha. waxaa laga yaabaa dadkeennan Soomaaliyeed inay fahmi waayaan ay ku adkaato ciid baa la waayey, laakiin ficlan aad bay u dhici kartaa, aad ayay u dhici kartaa. waxaa lagu safraa maraakiib waaweyn oo ay saaranta bad baan la dhex marayaa, way dhacdaa. waxaa ku qabsanaysa salaad baa ku soo haysa maraha galbeedka oo kaleeto ciid banaan taalla inaad heshaad marar badan meelo badan ka waayeysaa. waa magaalo wada laami ah, salaad baa ku haysa ayna waa ku taabtay inaad iska dhaqo salaad tukatana waad rabtaa, ama waktigaa kugu simi waayaya ama meel ciid laga helaba ma joogtid. waxaa dhacaysa adoo safaroo ayabood iyo garoonno maraya inay ku taabto, waa lagu baadhi inta lagu yidhaahdo aydan wax baadhbaadhaysa uu ku taabto. horeyna diyaaradaad usii gasho, diyaaradu saacad iyo 7 saacadood 8 saacadood iyo 10 saacadood baa sii socon kartaa. suwarka ay dhici karta ciid in la waayo way badan yihiin, 1 iyo 2 iyo 3 maaha. marka aan ku soo ururina ciid haddii la waayo laa yukalifu allahu nafsan ilaa wuscaha. biyaha uu hayo culimadu waxay yidhaahdeen biyihii 7 ahaabuu bedelkii ciidda mar 8aad ku darayaa, sida bedelkii ciidda buu 8 kaga dhigaya. cafiruhu thaaminata bituraab soo ma ahayn 8 ciiddii biyaa lagu dhaqayaa. taasaan ku filaanaysa. billahi tawfiiq. jazaaka allah khayr sheekh. su-aal dhaqana dhaqan Soomaali ah laakiin hadda qaab shareecana loo weydiiyey. waxaa leeyahay dadka waa idin salaamayaa, siyaalaha la isu guursado waa badan tahay, waa 9 nooc iyo waxbay tilmaamaan Soomaalidu. mid ka mid ah su-aal 3 qaybood leh. godobtirka qoladii ninka ka dishay gabadha la siiyo oo qoladii oo aanada qabtay oo laga tirsanaya aanada gabar lagu maslaxo ha qoladii aanada tirsanaysay ha qoladii aanada laga ha sax way qoladii aanada tirsanaysay gabar la siiyo iyo maxay horta shariicada islaamka qabtaa gabadhii iyadoon aqoonin ba ninka la siinayo haddii la iska mehersho ma ku mehersamaysaa hadday diido ninkii markii la dhoon nin hebel baa lagu siiyeyna meher ma yeelanaysaa jazakallahu khayr. alxamdulilah. horta masaladan godobtir iyo godob reeb gabadha lagu bixiyaay waa dhaqan Soomaalidu ay ka dhaxashay bulshadii carabta wey. waana dhaqan soona jiray ilaa haddana intaan ogahay bulshada carabta ka jira wey. halka inagu gabadha godobtir iyo godob reeb aan dhahno, iyagu meelaha qaarkood waxay u isticmaalaan erey carabi oo alfasliya la yidhaahdo. alfasliya khusuumadii iyo fitnadii bay kala saartay gabadhani. waa un godob reebka innaga magtu iyo xoolo la bixiyay ma daweeyaan dhaawacu iyo dhiiggii dilku ka tegey. laakiin markuu dhiig kala yimaado ilmo dhasho waxay daweysaa dhiiggii meesha daatay. waa meesha ay dhihi jireen halka xinjiri ku daadataa ya xab lagu daadshaa. xinjirtaas dhiigga xoolo ma daweeyaane xabbaa daweeya. xabkuna waa ilmaha dhashay, dhiig baa bedela. markay dadkii dhiigu yiilay dhalasho dhex markay dhex martana dhiiggii hore waa la halmaamaa. masaladu dhinac marka laga eego waa wax wanaagsan sharcan. dhinaca kalena haddii dadku ay rabaan si sharcigaa waa la waafajin karaa. mid wixii dhiigga muslimka lagu kala badbaadinayo, fitna laga yaabo dadka inayna waxba reebinna lagu daminayo. qur-aanku waa camimayo wasulxu khayr buu yihi, heshiisku waa khayr badan yahay. shirarkiina waxaa laga soo reebay aw islaaxin bayna annaasi. xataa beentii baa la baneeyey xaaraanta ahaydo haddii fitnadani ay xalkeedu noqoto in godob reeb iyo gabdho la isa siiyaay mabda wanaagsan wey.
wixii fitanka iyo dhiigga daadanaya iyo xoolaha burburaya muslimka isku akhara seegaya iyo fasaadka iyo fitanka ka dhalanaya ee intaasoo gabdhood agoon noqonayaan garooboobayaan qaxan imanayso waxaasoo belaya fitana wixii lagaga hortegi karo oon zina iyo xaaraan ahayn oo dariiq guur sharciga la marinayo mabda'u waa mabda wanaagsan wey waa mabda u baahan wixii turxaan bixin in lagu sameeye mabda u baahan in lala dagaalamo ma aha wax in la burburiyo u baahan oo la tirtira ma aha laakiin turxaamaha uu leeyahay buu in la saxa u baahan yahay masalada koobaad masalada labaad dhinaca sharciga wax gaaroo xukun gaarahoo godob reeb ku xidhan ma jiro gabadhani iyadoon idan la weydiinin weligeedu ma guurin karaa wey waa baab sidiisa u madax banaan wey hadduu guuriyo se meherkii ma asaxayaa hadduu asaxaso oynan rabin maxay samaynaysaa mas'aladu kuma xidhna godob reeb keliya way dhacdaa wayna dhici jirtay in reerkan gabadh la weydiisto iyadoon waxba la weydiinin nin la siiyo ninkaynan arag laga yaabo inuu anfaco inuusan anficinna waa laga yaabaa way dhacdaa wayna dhici jirtay sharcigu markuu ka eegaya wuxuu ka eegayaa gabadhan xaq waxay u leedahay in idan la weydiiyo nabigan wuxuu samayn jiray sal ly slam oo ka sugan markii nin gabadh soo weydiisto iyadoo ninkii ama rag kale la joogaan bay waraa alxijaab gabdhihii oo jooga wuxuu dhihi jiray ninkii hebel la yiraahdo intuu magacaabo gabadha heble la yihaahduu rabaa hadday aamustana waa u meherin jiray haddayna rabin oy marada soo garaacdana qacqac kaga siisana ma guurin jirin riwaayadka qaar waxay leeyihin gabdhihiisa saasuu yeeli jiray nabig sal ly slam gabadhu waan rabaada way ka xishootaa laakiin mar rabada kama xishooto kama cabsato marka sharcigeenu wuxuu farayaa gabadha in la weydiiyo inay ninka ogoshay garoobkana erey cad waa in laga helaa gabadhana aamuskaa ku filanoo weli baabkan maynay tijaabininoo ilaa xad xishoodka ku hadhay baa ka badan weli intayna rag isdhexgelin dariiqii in la mariyo bay u baahan tahay dariiqii haddii aan la marinin ise gabadh inana ay tahoon horey u soo guursanin xukun ahaan waxay la mid tahay un dee ninkii odaygaa ee gabadh soo dooni jiray ninkii dhallinyarada ee gabadh soo dooni jiray ninkii madax ama siyaasi ee gabadh soo dooni jiray ama la siin jiray ama loo diidi jiray marka la siiya gabadhoo lala tashanna la kala xididi jiray innaga soomaali gabdho markii la kala doono gabadh yaa la tashan jiray tani gabadha bixinteedan godob reebkiihii sababtu way fiicnaydee gabadha inaan waxba la weydiinin kaysaskan kale la wadaagtay xugun ahaan okay haddaba xukunkaan usoo degno asalka gabadhu hadday gabar tahay aan guursanin in la idan weydiiyey xaq leedahay albikru tusta'dan waay hadday diiddo ma banaana gabadha in la guuriyo haddaynan diidin in la guuriyo way banaanta haddaan laba weydiinin marar bay banaanta iyadoon la weydiinin in la guuriyo haddaynan gabadhu gaadhinba xilli ay leedahay garasho ay wax kala doorato iyadoo yar baa la guurin karaa nabigana sal ly slam caaisho wa yareed marka loo guuriyey cidi waxma weydiinin markii la diyaarinayay la gelbinayay ciyaar bay moodeyso mabayna looga yimade marka meherkii wuu asaxayaa hadday gabar tahay meherkii wuu asaxayaa iyaduna xaq waxay u yeelanaysaa inay ka doodo iyo fasaq bay xaq u yeelanaysaa nabigana gabadh baa u timi sal alay wasalam waxay ti rasuulka ilahi aabbahay anigoon rabin buu igu meheryenin khiyaar baad leedahay buu yihi wuxuu khiyaar u siiyey inay ninkaa iska dhaqatiyo inay fasaqato khiyaarku wuxuu ka turjumayaa nikaax inuu asaxay wuxuu kaloo ka turjumayaa de ninkan gabadha loo guuriye gabadhu guur way u baahantah guurna way doonaysaa ninkan loo guuriye nin anfacayo oo anfaca inuu noqdo ku qanacdana way noqon kartaa nimaan anficinayn ku qancinna way noqon kartaa khiyaarka marka iyadaa la siinaya midna waan rabaa cabdirasaaqow laba qodob oo qodobkan la xiriira inaan tilmaamo
qolyo si xun bay u akhriyaan qolyo la yidhahdaa dumar iyo xuquuqdood baan u doodnaa sibay u akhriyaanoo waxay dhaheen dan baa laga shaqaynna waa la yidhaahdaa danna waa la afduubayaa xorriyadoodii iyo xuquuqda shakhsiyeed baa looga dhacayaa laakiin dhinaca kale waxaa jira boqolaal waalidku ugu taliyey guur oo guurka ilaahay u barakeeyey iyo kuwo iyagu dariiqa nin ka keensaday oy dullaysteen baa badan wixii khayr ku jira marka ilaahay baa horta wixii khayr ku jira ilaahay waa laakiin waaqicana practically marka la yiraahdo waxaynu naqaanaa in badan oo dhinac waalid ka timid oo dhaqan wanaagsan iyo reer wanaagsan noqday kuwa badan oo godob reeb lagu bixiyey oo iyadii iyo ninkeedii iyo reerihiiba u wada aayeen mar hore waxaan aqriyayey waa hore qoraallo badan iyo waraysiyo badan oo soomaaliya carabba lala yeeshay haween waaweyn oo godob reeb lagu guuriyey oo ka sheekeynaya guurkoodii caruurtay dhaleen oo ka sheekeynaysa dhinaca kale waan haynaa kuwa saa inta lagu guuriyey waalidku ama godob reeb ha noqoto ama siin ha noqotee nimaan anfacaynin iyo guri dhib badan ay kala kulantayna waa jira sidoo kale waxaa lamida seem ah kuwa iyagu keensaday ee banaankan kusoo dookhayga kusoo heshiinay yiri oon bil gaadhin usbuuc arooskan aan dhamaysanin oo badanna waa naqaan kuwa intay ilmo dhaleen adduunka ku cadaabayna waa naqaan kuwa isku fiicnaadayna waa naqaan okay qodobku dameeru soo degee waa la hagaajin karaa waxani waa la turxaan bixin karaa waxaa jiray dhacdo runtii tusaale noqon karta oo cashaa'ir sunniya fil ciraaq ka dhacday qabaa'il baa islaayey dad baa la dilay dhowr nin baa reer laga dilay reer dhaqankooda waxaa ka mid a sideenoo kale godob reebka yaqaanaan markii la isu yimid baraarug diineedna waa jiray waxaa la yidhi gabadhii in la qasbana maaha oo qolii qoorqabad biyo kuma cabto fitnadan inaan daminana waan u baahannahay laba reeroo isguursadoo isgeyana waana gabdhaan idin siinaynaa gabdhihi inaan qasabno ma rabno 2 mise 3 gabdhood bay ahaayeen waxaan idinka rabnaa raggiina dhalinyarada gabadhiiba dhowr nin inaad keentaan oo niraana gabalay raggan ka dooro si gabadhin hata khiyaaraad u hesho sidaasay talada waxaa keenay rag culimo ah oo qayb ka ahaba waxay warbaahishu ha hagaagtee tii maslaxadii adduunka iyo tii sharciga aan iswaafajinne reeruhu waa dad iswada yaqaanee koox dhalinyaradooda ah raggan ha keenaan gabadhana koox dhalinyaro ah ha keenaan gabdhihii aan nidhaano raggii waa kan dhalinyarada ahe mid ka dooro oo mid waliba ninkay tirahdaa anay kaasaan rabaa ha lagu guuriyo sidaana godob reebkaa ku noqoto waxaan is leeyahay saa haddii qaabkaa iyo qaabab lamida waa loo turxaan bixin karaa bilahi towfiiq jazaak allah khayr sheekh saa'il malaha waqti badanna su-aala sugaya